hooyooyinka aqoon-yahanada waxaan ka codsanaynaa xasan sheekh lixda bisdeeda bilood oo u hartay inta loo lacageeyo in la siiyo dawladnimo annagana deeqda isaguna dawlad maaha waan ka gabadan talo wanaagsan bay soo jeedisay oo waxay leedahay si loo kala badbaadiyo madaxweynaha dhulka burburinaya iyo dadka shacabka la barakicinayo si loo kala badbaadiyo madaxweynaha waqtigiisa inta u harsan aan ka iibsano oo aan lacag isku dardarno isdhaafino hada fiiri gabadan waxay leedahay aan ka iibsano madaxweyneedkiisa inta uga harsan si kale ninkaa inaguma daayin doono dadka shacabka ah iyo ganacsatada inta baaqi u dirta bini aadanka marka isku fikir ma aha isku cabirna ma aha gabadhan hadalka siday u tiri waxbaan ka oran doonaa balse marka hore horta hadalkeeda aynu dhageysano ummadii waa isku jabiyay muslimka waxaan ka codsanaynaa inta ummadda nabi maxamed culumaa diinka islaamka hooyooyinka aqoon-yahanada waxaan ka codsanaynaa xasan sheekh lixda bisdeeda bilood oo u hartay inta loo lacageeyo in la siiyo dawladnimo annaga dawladnimaana deeqda xasanna lacag baa deeqda dadkan in la barakiciyana ma qumana aan u lacagayno muddada u harsan si dadkana aan loo barakicinin dawladnimadana aan nooga burburin xasanna uu u dego warkeeda waa saas markaa fiirisa markaa faham dheer ama falsafad dheer oo saacado in lagu sharxo u baahnaa lahayd bay horta gabadhaan inoo soo koobtay aan ku celiyo shuruud bay uga dhigaysaa gabadhan madaxweynaha in lacag loogu bedelo 8 bilood oo qaato laakiin tago markaa fiiriso marka gabadhan halbeegeeda ama meesha ay ka duuleyso aniga waxaa ii soo baxday qof maskaxdeeda in muddo ah ka fikiraysay maxaa dhulka loo burburinayaa madaxweynuhuna muxuu doonayaa maxaana xal noqon karaaba in muddo ah ku fikiraysa gabadhan dawladnimada xataa waa xiirinaysaa dadka la barakicinayo oo u murgaysaa madaxweynahana inay qancisay doonaysaa taaba waxay keenaysaa marka in ay shuruud dul dhigto madaxweynaha in lacag loo ururiyo 8 bilood laga iibsado laakiin uu ka tago waxay meesha waxaa ku jira lacag baynu siino hayna dhaafo inaysan xal ahayn baa meesha ku duugan oo waxay leedahay haddii lacag la siiyo xataa waxay u dhigmaysaa dheeraadii haddii lacag la siiyo xataa inaga leexa la yiraahdo ma joogi doono waa imaanaya haddana mar kale ninkan lacag aan u ururino 8 bilood ha nooga tago madaxweyne la-aan ama mid kale aan saarano shuruuday gelinaysaa waxay garowsan tahay marka inuu kusoo laaban lahaa taa sida kuwa kale ugu soo laabtay laana 2012 dadkii dhulka laga iibiyey baa mar kale lagu soo laabtay iyaduna waxay leedahay haddaan mar kaleeto haddaan lacag siina xataa waa nagu soo laabanayaa xilka aynu ka iibsano aan naga caawiyo Soomaaliya lacagaha isku darno gabadhan marka waxaan leeyahay waxay igala aragti fiican tahay ama igala dareen idam qasho wanaagsan tahay dad badan oo siyaasiyiin ah cuqaal ah waxgarad ah odayaal ah ama aqoon-yahan ah oo intay cabiri karila sida ay wax u sheegtane u sheegila ama calooshooda ha u baqaan ama dhuuntooda ha ilaashadaan ama cabsi ha u geysay waxaa leenaha marka ugaasada xildhibaanada garaad caaqil malaaq oday suldaan intaba shacabka Soomaaliyeed ina u taariijinayo dadka dulman de magaceeda noo soo sheegay waa caleema saarayna gabadheena aad baa u mahadsantahay